beeralayda ku dhaqan ismaamulka Mandera ayaa qasaaro xoog leh waxa uu ka soo gaaray kadib fatahaad uu sameeyay webiga Dawa oo qararka jabsaday waxaana fatahaadda webiga ka dhalatay in gabi ahaanba dalagyadii beeruhu ay baaba'aan wariyaha halkaasi nooga soo waraa Mandera ayaa faahfaahinaya. halkani waa beeraha ku yaala Border Point 1 ee magaalada Mandera. waxaa gabi ahaanba qariyay biyo kadib markii webiga Dawa ee magaalada Mandera uu qararka jabsaday. fatahaadda webiga ayaa saameysay 100 hektar oo dhul ah oo ay ku abuurnaayeen dalagga kala duwan kuwaas oo hadda aanan waxba laga badbaadinin. beeraha waxaa ka dhex muuqda oo kaliya geedka cambada kaasoo awood u yeeshay inuu u dhabar adeego daadka halka kuwa kale ay biyaha qariyeen. fatahaadda webiga ayaa hadda ceerteeyay beeraley fara badan oo shalay ku filnaa maalin nololeedkooda. dadkii shalay hantida lahaay inay maanta ceertoobeen beerihii ay xaaqmeen dadka ay masaakiin noqdeen qaar kibaro ku shaqaysan jiray iyo qaar beerood falan jiray qaar oo maxaa heeday coos ka guran jiray xoolihii ku noolaay oo beerahan daaqi jiray kulli ay maanta ay xaalintan saameysay dhibaatada cadaalad ishiina macallinkii ahay biyihii waa kan arkayseen oo fasaahada ay 3 kiiloomitir ay buuraha yimaadeen. beeralayda ayaa ku dooday in beerahooda ay horay biyo ula fadhiyeen inta uusan webiga qararka jabsanin iyagoo farta ku fiiqay hoggaan ay dawladda qoday si ay ugu adkayso darbiga ay ka dhisayso xuduud ay la wadaagto Soomaaliya. beeralayda ayaa sheegay in hoggaani uu biyo ka keenay buuraha Balad Xaabo kadibna uu beerahooda buuxiyay. roobku markuu da'ay kanaalkii ay dawladda jeexday oo xuduudka ay ka dhistay ilaa Buulaxaawe ilaa iyo buurahaas biyaha ka keenay ayaa beeraha naga qasaaray markii ugu horeysay. markii dambe webiga soo fatahay. beeralayda ayaa hadda ka cabsi qabo in fatahaadda webiga uu ku soo fido xaafadaha ka agdhow iyo inuu cudurro u keeno. hay xaafadaha qatar yihiin dhibaatada xigtana ay noqon doonto dib biyahan ay saan ku joogaan ay deegaanka la degnaan karin kanaacadi iyo bixi masaska webi ka soo baxay iyo wixii jeeraha iyo xaas ay kulli ay soo baxayeen xaafadana qatar ku jiraan. fatahaadda webiga ayaa saameysay dhul gaaraya 150 kiiloomitir kuwaasoo ku fidsan webiga jiinkiisa. khasaaraha xooleed ee ka dhashay fatahaadda webiga ayaa dawladda ismaamulka Mandera ku sheegtay inay gaarayso 114 milyan iyo 700 oo kun oo shilinka dalka. beeralayda ayaa hadda dawladda dhexe iyo dawladda ismaamulka Mandera ugu baaqday inay la soo gaaraan gargaar degdeg ah. marka dawladda dhexe iyo county-gaba waxaan ka codsanaynaa inay naawiyaan raashin ummadan u keenaan shidaal keenaan daawo keenaan. Axmed Cabdirashiid Xaaji RTN Mandera.